Antarctica waa qaarad dhacda cirifka ugu dambeeya ee koonfurta dunida. Waa qaaradda ugu qallalan, ugu dabaysha badan, ugu qabow, uguna barafka badan caalamka. Waa qaaradda ugu sarreysa adduunka iyadoo celceliska dhererkeedu uu ka sarreeyo heerka badda qiyaastii 7,200 oo fiid, una dhiganta 2,200 oo mitir. Ma laha dad asal ah ama dad si joogto ah u deggan. Ma jiraan waddamo ka tirsan Antarctica. Dadka ku nool waa kuwo ku meel gaar ah, waxayna ka kooban yihiin 1,000 ilaa 5,000 oo saynis yahano iyo shaqaale kale oo caawiya, kuwa oo ku nool in ka badan 70 saldhig oo cilmi baaris. Waxaana xilliga xagaaga booqda qaaradan ku dhowaad 10,000 oo dalxiisayaal ah. Haddaba muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa maxay tahay sababta qaaradan aysan u lahayn dad si joogto ah u deggan, iyo sababta ka hor istaagtay bini'aadamku inay degaan kuna noolaadaan qaaradan. Qiyaastii 180 milyan oo sano ka hor, Antarctica waxay ka mid ahayd qaaraddii weyneed ee loo yaqaan Gondwana, taasoo isku haysay dhulalka maanta loo yaqaano Afrika, Koonfurta Ameerika, Australia, Hindiya, Madagascar iyo Antarctica. Xilligaas cimilada dunidu waxay ahayd mid aad uga kulul tan maanta, waxaana Antarctica ka bixi jiray kaymo cufan oo cagaaran, iyadoo ay ku noolaayeen noocyo badan oo xayawaanno hore ah oo ay ku jiraan diinosooro kala duwan. Muddo 10 milyan oo sano ah, dhaqdhaqaaqyada taariikhda dhulka ayaa si tartiib tartiib ah u kala fogeeyay Gondwana. Afrika iyo Hindiya ayaa markii hore ka go'ay, waxaana xigay Australia iyo Koonfurta Ameerika. Ugu dambeynna Antarctica waxay noqotay qaarad gebi ahaanba ka go'doonsan dhulalka kale. Muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa macluumaadyo badan oo ku saabsan qaaradan barafku dahaara ee Antarctica, balse marka hore waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horreysay inaad janalka ku soo biirto, muuqaalkana aad like dhahdo si uu u gaaro dad badan. Antarctica waa qaarad cabirkeedu yahay qiyaastii 14.2 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran. Waa qaaradda shanaad ee ugu weyn caalamka marka loo eego guud ahaan bedkeeda. Waxay ka weyn tahay qaaradda Oceania iyo Yurub, waxaana baraf dhumuc weyn leh uu daboolaa qiyaastii 98% dhulka qaaradan guud ahaan. Qaaradan ayaa loo qaybiyaa bariga Antarctica oo inta badan ka kooban taag sare oo baraf ku daboolay, iyo galbeedka Antarctica oo iyana ka kooban lakabyo baraf ah iyo jasiirado buuraley ah oo isku xiga. Antarctica waa qaaradda keliya ee dunida aan lahayn dad asal ahaan u dhashay ama magaalooyin iyo degmooyin ay dad rayid ah si joogto ah ugu noolaadaan. Dadka ku sugan Antarctica waxay gebi ahaanba ka kooban yihiin saynis yahano, shaqaale taageero iyo xubno ka tirsan safarro cilmi baariseed oo si ku meel gaar ah halkaas uga shaqeeya. Tiradoodu way isbeddeshaa xilliyada sanadka, iyadoo gaartay qiyaastii 5,000 oo qof xilliga xagaaga, halka jiilaalka ay hoos ugu dhacdo ku dhowaad 1,000 qof. Antarctica ma laha dad si joogto ah ugu nool, sababtoo ah waa deegaanka ugu adag ee bini'aadamku ku noolaan karo. Waa qaaradda ugu sarreysa, ugu qabow, ugu qallalan, uguna dabaysha badan dunida. Xilliga jiilaalka heerkulka meelo badan wuxuu gaaraa wax ka yar -60 digrii, halka meelaha qaarna uu hoos uga dhaco -80 digrii. Dabayle aad u xoog badan oo mararka qaarkood ka badan 300 oo kiiloomitir saacaddii ayaa si joogto ah uga dhaca qaybo ka mid ah qaaradda. Inkastoo Antarctica ay daboolaan baraf aad u badan, barafkaas badankiisa waa baraf adag oo aan si toos ah looga heli karin biyo la cabo. Si biyo loo helo waa in barafka la dhalaaliyaa, taasoo u baahan tamar iyo qalab gaar ah. Sidoo kale qaaraddu ma laha geedo, kaymo ama dhir waaweyn oo dabiici ah, sababtoo ah qabowga daran iyo carrada oo inta badan ku hoos jirta baraf qaro weyn ayaanan suuragal ka dhigayn inay wax ka baxaan. Inta badan noolaha laga helo waa penguins, seals iyo shimbiro badeed ku nool xeebaha iyo badaha ku xiran. Beerashada cuntada Antarctica waa mid aan suurtagal ahayn inta badan meelaha, maadaama carradu qabowdahay oo ay ku daboolan tahay baraf sanadka oo dhan. Sidaas darteed, dhammaan cuntada, shidaalka, daawooyinka iyo agabka kale ee lagama maarmaanka ah waxaa laga keenaa dalal kale, badanaa iyadoo loo marayo maraakiib ama diyaarado. Haddii sahaydaasi joogsato, dadka halkaas jooga ma awoodi karaan inay muddo dheer isku filnaadaan. Sababahan awgood, Antarctica ma laha magaalooyin, tuulooyin ama bulshooyin si joogto ah u deggan. Dadka keliya ee halkaas ku suganna waa saynis yahano, farsamayaqaano iyo shaqaale taageero oo ka shaqeeya saldhigyada cilmi baarista muddo kooban. Marka ay dhammeeyaan howlahoodana waxay dib ugu laabtaan dalalkooda. Sidaas darteed, Antarctica waa qaaradda keliya ee dunida aan lahayn dad asal ahaan u dhashay ama dad si joogto ah ugu nool, waana tan sababtay in qaaradan aysan lahayn dad leh ama ku nool oo deggan. Ma jiro hal waddan oo leh lahaanshaha Antarctica. Qaaradan waxaa si wada jir ah caalami ahaan loogu maamulaa nidaamka loo yaqaano Heshiiska Antarctica ama Antarctic Treaty System.
Heshiiskan waxaa la saxiixay sanadkii 1959 waxaana uu Antarctica u qoondeeyay oo keliya ujeedooyin nabadeed iyo cilmi baaris saynis. Waxa uu si gaar ah u mamnuucayaa howlaha militari, tijaabooyinka hubka nukliyeerka iyo qodista macdanta. Heshiiskan wuxuu ka dhigay Antarctica meel gaar ah oo aan loo adeegsan karin dagaal ama tartan siyaasadeed, balse loogu talagalay in dhammaan dalalka dunidu ay iska kaashadaan cilmi baarista iyo ilaalinta deegaanka qaaradda. Ka hor intii aan la samayn heshiiska Antarctica, 7 waddan ayaa sheegtay inay leeyihiin qaybo ka mid ah qaaradda. Waddamadaas waxay ahaayeen Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway iyo Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska. Heshiiska Antarctica wuxuu si wax ku ool ah u hakiyay sheegashooyinkaas dhuleed. Taas micnaheedu waa in heshiisku uusan si rasmi ah u aqoonsan sheegashooyinka waddamadaas, sidoo kalena uusan diidin. Sidaas darteed, muranadii lahaanshaha dhulka Antarctica waxaa loo hakiyay si aanay u noqon khilaaf caalami ah. Canada iyo waddamo kale oo badan ma aqoonsana wax sheegasho dhuleed ah oo ku saabsan Antarctica, waxayna ku doodaan in qaaraddu tahay hanti ay wada leeyihiin dhammaan bini'aadamka. Maanta in ka badan 50 waddan oo ka tirsan nidaamka heshiiska Antarctica ayaa si wada jir ah uga shaqeeya maamulka iyo ilaalinta gobolkaas. Waddamadaas waxay iska kaashadaan cilmi baarista sayniska, ilaalinta deegaanka, iyo hubinta in Antarctica loo isticmaalo ujeedooyin nabadeed oo keliya. Waxaana halkaas ku eg macluumaadkii aan ka diyaarinay qaaraddan barafku dahaaray ee Antarctica.